waxaa sharafeen noo amaantay inuu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre uu noogu yimaado meeshan goobtan oo laba ujeedaba uu ra'iisul wasaaruhu yimid kow inuu dhagax dhigo maantay warshad weyn oo soo saari doonto dhammaan dharka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed labo inuu soo eego ra'iisul wasaaruhu warshadii qalabka dhismaha oo soo saaraysa bulkeetiga interlogga tuubooyinka darbiyada waaweyn oo shubka ah shubkii laamigii wixii oo dhan oo ciidanka asluubta Soomaaliyeed uu ku guuleystay inuu dib u kiciyo ay u shaqeyso shaqo bilowda maantay taasoo hadda productionkii ama wax soo saarkeedii qayb kamid ah lagu dayactiraya dalkii oo lagu sameeynaya hadda taalooyinkii qaranka lagu dhisayo marka aad iyo aad baanu ugu faraxsanahay uguna mahadcelinaa ra'iisul wasaaraha booqashadiisaas iyo dhaxadhiga maanta uu sameeyay warshadan dalka Soomaaliya waxa ugu deeqay dalka walaalahan ee Turkiga ayada dhanba tan dhismaha tan qalabka tankida iyo tan dharka ciidamadaba hase yeeshee muddo dhowr sano ah laga soo bilaabo 2016 ayay qaarna iska yaaleen qaarna howlgab ahaayeen saas daraadeed baa madaxweynaha Jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaruhu waxay go'aamiyeen ciidanka asluubta Soomaaliyeed inuu gacanta ku qabto dibna u kiciyo wixii dhismo u baahan dib u dhiso saas ogeed baanu tii dhisnayna howlgelinay tan cusubna maanta uu ra'iisul wasaaruhu u dhaxdhigay oon doonayno ugu dambeyn bilowga sanadka soo socda inay dharka ciidanka soo saardiisa bilowda hadii